waa tahay daawadayaal qodobo dhowr ah oo dhankii dibadda ayaan barnaamijyadeedkeena diiradda ku saari doonaa khilaafka webiga Niil halkee ayuu ku dambeeyaa Suudaan iyo Itoobiya iyo Masar oo weli isku haysta. Suudaan oo markaasi war ka soo saartay khilaafka webiga Niil ayaa daawan doontaan. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dhul gariirkii ka dhacay Indonesia tirada ku dhimatay ayaa sare u kacday biyo dhiig u eg oo qabsaday dariiqyada tuulooyinka ku yaala wadankaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii Rabweyne raali laga helo cambaareyn ka dhalatay masaajid lagu burburiyay wadanka Kenya. qodobadaas iyo hadba qodobada inagu soo kordhaya daawan doontaan like saar oo la wadaaga saxaabtaada subscribe inoo saar kuna soo dhawaada barnaamijyadeedka qodobada oo dhaca ku daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaana ku bilaabaya. xukuumadda Suudaan ayaa sheegtay in go'aanka Itoobiya kaligeed ku gaadhay in ay buuxiso harada biyo xidheenka Niil halis ku yahay nabadgelyadeeda qaranka. wasiirka biyaha iyo waraabka Yaasir Cabbaas oo waraysi siiyay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ugu baaqay Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika in ay dhexdhexaadin ka galaan khilaafka u dhaxeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan ay isku hayaan arrinta biyo xidheenka. Itoobiya ayaa bilowday sanadkii hore buuxinta harada biyo xidheenka inkasta oo ay Masar iyo Suudaan ka dalbadeen in aanay arrintan ku dhaqaaqin ilaa inta saddexda dhinac ee marka hore heshiiska gaadhayaan arrintan. Cabbaas ayaa ka digay in Itoobiya tallaabada ku dhaqaaqdo oo ay bilowdo bisha July ee soo socota. arrintaasi waxay halis gelin doontaa nolosha kala badh markaasi dadka ku nool bartamaha Suudaan iyo sidoo kale saameyn taban oo ay ku yeelan doonto wax soo saarka beeraha iyo kooraanka markaasi ayuu yiri. Suudaan iyo Masar ayaa wada hadallo aan miro dhalin oo socday 10 sano la waday Itoobiya tan iyo markii ay bilowday dhismaha biyo xidheenka sanadkii 2011. Itoobiya waxay sheegtay in ay gaadhay yoolkii sanadka koowaad ee buuxinta harada biyo xidheenka sidoo kalena ay ka go'an tahay inay buuxiso haradaasi haddii ay heshiis saddexda dhinac arrinta markaasi ka gaadhaan iyo haddii kaleba. wasiirka biyaha iyo waraabka Suudaan waxa uu sheegay in ay markaasi adkaan doonto in uu shaqeeyo biyo xidheenka Rosaris la yiraahdo haddii aan la gaadhin heshiiska Itoobiya ku waajibinaya in laga helo macluumaad ku saabsan xiddiga biyaha oo uu soo deyn doono biyo xidheenka. bishii hore ayay markaasi saddexda dal yeesheen wada hadallo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka socda Midowga Afrika iyo Midowga Yurub hase yeeshee lagu kala kacay iyada oo aan waxba la isla meel dhigin. toddobaadadii u dambeeyay waxaa xiisadii markaasi ay gashay xiriirka Addis Ababa iyo Khartoum arrintaasi oo ka dhalatay khilaafka ka taagan xadka labada dal. Itoobiya ayaa sheegtay in biyo xidheenku muhiim weyn u leeyahay sababtuna tahay baahida koronto ay qabaan dadkeeda tiradiisu markaasi kor u dhaafayso 100 milyan. ha yeeshee Masar iyo Suudaan ayaa ka walaacsan in biyo xidheenkaasi yaraan doono biyaha dalalkooda gaadha. ugu dambeyn daawadayaal dariiqyada tuulo ku taal dalka Indonesia ayaa waxaa buux dhaafiya biyo guduud ah kadib markii daadad xoogan ay ku dhufteen warshad dharka lagu naqshadeeyo oo ku taala deegaankaasi. biyo leh midab casaan ah ayaa shalay oo Sabti ahayd ku qulqulay wadada Jangkot ee bartamaha jasiiradda Java. deegaankaasi oo ku yaal koonfurta magaalada Bekaalokan ayaa caan ku ah naqshadeynta dharka lagu aslo ama rinjiyeynta midabo kala duwan iyadoo markaasi la adeegsanayo farsamo dhaqameed soo jireen ah oo halka markaasi laga yiraahdo batik. kumanaan qof oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa wadaagaya sawiro muujinaya biyo guduud ah oo qarqiyay tuuladaasi. mas'uul ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee deegaankaasi ayaa xaqiijiyay in sawiradaasi ay ka turjumayaan xaqiiqada dhabta ah ee halkaasi ka jirto. webiyada ku yaala Bekaalokan ayaa marar hore la arkay iyaga oo wado biyo midab leh sababtuna waxaa lagu sheegay rinjiga dharka lagu xardho ama aslo oo marka ay roobabku da'aan ku milma daadadka. waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters bishii la soo dhaafay la arkay biyo cagaaran oo markaasi ku fatahay tuulo kale. dalka Indonesia ayaa waxaa marar badan ku dhuftay fatahaado xoogan waxaana horaantii sanadkan magaalada caasimadda ee Jakarta ku dhintay 43 qof kadib markii ay duufaan ku dhufatay. mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo looga hortagayo roobabka lixaadka leh ee ka daa halka.
ugu dambeyn daawadayaal waxaa la burburiyay mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn Kenya kaasi oo ku yaala deegaanka Kiboi oo ka dhaca gobolka Kisumu ee galbeedka Kenya sida ay ku warantay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya ka soo baxda waaxda tareenada ee Kenya ayaa qaaday howlgal ay ku burburinayso guryo iyo dhismooyin ku yaala halkaasi oo ay sheegtay in si sharci darro ah ay dadka ku deganaayeen dhulkaasi sida ay sheegeen warbaahinta gudaha dadka deegaanka ayaa dhaleeceeyay tallaabada lagu burburiyo guryaha iyo masaajidka xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto bartamaha Gaarisa ayaa cambaariyay tallaabada lagu burburiyo masaajidka kuna tilmaamay mid qalad ah oo ka soo horjeeda diinta Islaamka wuxuu intaasi ku daray in masaajidka la dhisay sanadkii 1938 oo ay 3 subaxnimo burburiyeen waaxda tareenada ee Kenya waa arin ka soo horjeeda dastuurka oo lagu wiiqayo xorriyadda qofka oo ku cibaadaysanayo isla markaana xadgudub ku ah ummadda muslimka ayuu yiri Aadan Barre Ducaale oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Twitterka guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijyadeedkii aad ka daawanayseen channelkeena Zucamada Official fadlan subscribe saar muuqaalkan like inoo raaci share ku dadaal oo la wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan oo ka faa'iida macluumaadka aynu halkan soo gelinayno waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay isla markaasna aad ka dhuuxday nuxurka ku saabsan qodobadii aan ka soo hadalnay balse intaan barnaamijyadeedka soo xilin waxaan doonayaa inaan idin hor dhigaal su'aalo miisaankeedu sareyso laakiin adiga daawanaya muuqaalkan lagaga baahan yahay inaad qaybta hoose ee commentiga ee faalada aad noogu reebto aragtidaada ku wajahan arrintaasi haddaba daawade sidee u aragtaa hadal